hay-adda islaamiga ee East African Welfare Association Development ee loo yaqaano IWADA ayaa ka bilowday deegaamo badan oo ka tirsan gobolada Togdheer, Saaxil, Saraar iyo Daadmareer hawlo qaliimo indhajeexis bilaash ah oo loogu sameynayo dadka danyarta ah ee ku dhaqan deegaamadaasi. 9kii bishan Juun ayay dhakhaatiir ka socotay hay-addan IWADA ay qaliimadoodii ugu horeeyay indhajeexista ka bilaabeen magaala madaxda gobolka Daadmareer ee Oodweyne, taasi oo si lacag la'aan ay uga faa'iideysteen qaliinkani dad tiro badan oo ay soo asiibeen xanuuno indhaha kaga dhacay kuwaasi aan awoodeynin kharash ay iskaga bixiyaan cisbitaalada. waxaanay dadkani mahadnaq ballaaran u soo jeediyeen qaliimadan ee hay-adda IWADA ka fulisay deegaankaasi. Sheekh Aadan Xasan Siciid oo ah gudoomiyaha hay-adda IWADA ayaa mar uu ku sugnaa goobta ay qaliimadani ka fulinayeen ee gobolka Oodweyne ayaa sheegay in hawshan ay tahay mid sanad walba ay ku kaalmeeyaan dadka gobolada Somaliland ku dhaqan. waxaanu intaasi ku daray Sheekh Aadan Xasan Siciid in maalmaha soo socda ay ka bilaabayaan gobolada Saaxil, Togdheer, Saraar iyo deegaamo kale oo badanba hawlaha indhajeexista oo ah mid ay hay-addani xil gaar ah isaga saartay kaalmeynta dadkaasi. geesta kale iyadoo ay hay-addan IWADA ay ku howlan tahay horumarinta qaybaha bulshada ay baahida weyn ka haysato ayaa waxa ay haatan ka bilowday magaalada Burco xarun agoomeed oo hay-addani gacanta ku hayso qodida riig biyood oo loo soo bandhigayo ummadda muslimiinta ah meel kasta ay joogaan bayna ka qayb qaataan dhameystirkiisa. waa kan Sheekh Aadan Xasan Siciid oo ka hadlaya dhismaha riigani iyo howlaha riigu haatan meesha ay marayaan. la qodayo oo laga qodayo xarunta agoomaha riigaasi waxa weeye riig loo baahan yahay oo ummaddu aad ay ugu baahan tahay. qorshihiisana muddo dheer aan ku jirnay, iminkana riigaasi uu bilaabmay oo wiigan soo socda ayaa shaqadiisii ay bilaabmaysaa, gacanta la saarayaa. waa mashruuc weyn weeyaan. waad ogtihiin sanado walba waxa weeyaan biyo dhaamis baa dhulka ka dhaca, biyo la-aan ayaa ka jirta. marka mashruucaasi waa mashruuc bilaabmay, waana mashruucan ummadda magaranaysa aan u sheegayno in looga baahan yahay. dhaqaalihiisii magaranaysa waa kala dhiman yahay, in laga soo qayb galo ayaan u baahannahay. si dhaqsaa ayaan gacanta loo saarayaa, waxaanan ku rajo weynahay ilaahay idankii inuu mashruucaasi uu fuli doono si degdega uu u dhammaan doono. marka ummadda ayaa muslimiinta ama Soomaaliyeed ama meel kastoo ay joogto oo na maqlaysa waxaan ka doonaynaa magaranaysa ama ka codsanaynaa inay mashruuca ka soo qayb galaan oo dhaqaalihiisa si uu mashruucaasi u dhammaystirmo inay magaranaysa ay nagala soo qayb galaan. mashruucan waxa ka faa'iideysanaya ummad aad u fara badan oo magaranaysa jilicsan oo agooma ku jiraan oo dad danyar ku jiraan oo biyaha u baahan. biyahaasi waa baaq weeyaan aan ummadda u jeedinayno. waxa weeyaan hadda gacantaan saarnay, qalabku waa dul yaallaa, mashiinkii qodayay ceelku waa dul yaallaa. waxaa loo baahan yahay dhaqaalihii in la soo dhammaystiro ayaan ummadda uga baahannahay. sidaas ayaan magaranaysaa warkaa idinku soo gudbinaya ummadda meel kastoo ay joogaan wixii maqlaya warkayagaas waa baaq. ugu dambeyntii hay-addani islaamiga ee IWADA ayaa mashaariicda ay ka fuliso deegaamada ay ka howlgashaa ay ka mid yihiin daryeelka xarun agoomeed oo ku taala gobolka Togdheer, ceelal qodis laga sameeyay sanadihii u dambeeyay deegaamo badan oo ka tirsan Somaliland iyo howlo kale oo badan oo dhammaantoodba ay ku taakuleynayso dadka danyarta ah ee deegaamada ay hay-addani ka howlgasho ku dhaqan. Maxamed Caawad Maxamed, telefishinka caalamiga ee Somali Channel.